الرحمن الرحيم haddana waxaan imaanay Isle of Man tuulo caan ah oo dad badan ay soo booqdaan waxaana lagu yaqaanaa inay ku taalo water wheelka oo ugu weyn adduunka oo shaqeynayo ilaa ay hadda shaqeynayo tuuladan ayaa awalkeedii hore waxay ahayd tuulo oo kalluumaysato ah kadib ayaa waxaa laga helay macdanta loo yaqaano macdanta sida silverka oo qalinka iyo waxaa laga helay sidoo kale zinc waxaa laga helay lead marka laga helay ayaa waxay bilaabeen qoditaan marka qoditaanka la bilaabay ayaa waxaa loo baahday qof oo meeshaan maamulo wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Richard Rowe ayaa meeshii qabtay runtii aad u bedelay marka dhibaato waxay qabeen meesha oo macdanta laga qodo ayaa biyaha mar walba soo fariisan jiray marka biyaha sidii loo xalin lahaa ayaa wuxuu sameeyay wuxuu isu wacay injineeradii ayaa waxay la yimideen water wheelkan oo biyaha ka saarayo godka taasoo u suuragelinaysa dadka macdanta qoda inay kala soo baxaan macdanta ayagoo dhibaato aan kala kulmin taasna waxay kordhisay wax soo saarkii oo meesha macdanta laga qodo tuuladana ka dhigtay tuulo shidan oo dhismooyin badan ka dhismay shaqaale badan ay soo shaqo doontaan ayay noqotay marka hadda waxaa ku socdo hadda ay fiirsaan ila taaliya macnaa hadda waxaa ku socdo dib u habeen dadkan waxay ku fiican yihiin waxyaabihii hore way keediyaan dib u habeen ayaa lagu sameeyaa dib u habeentii ayaa ku socdo calankoodiina weli waa u jeedaa saddexda lugood meeshii wuu ku taagan yahay oo ah dhinac walba aa ii tuurto labadeeda lugaha aan ku taaganahay marka dad badan ayaa waqtiyada samarka soo booqdo anaga hadda waxaan imaanay waqti maghrib ah baskiyaan soo qaadanay ugu faa'iideysanay hadda dhismaa ku socdo oo maxaa yeelay waxay rabaan inay dib u habeen ku sameeyaan waxaa la yiraahdaa waa engineeringkii ugu macnaa ugu caansanaa waqtigii Victorianka waagaas marka laakiin sanadkii 1200 markii la gaaray wadamo kale ayaa laga helay macdintan oo si raqiis ah u soo saarayo sidii ayaa lagu joojiyay macdantii meeshan laga qodayay laakiin magaaladii waxay isku rogtay magaalo dalxiis loo yimaado oo waa shidantay waa dhisantay laakiin waxa ugu wacnaa macdantii meeshan oo laga qodayo anagana waxaan rajaynaynaa dalkeena hooyo macdinta ku jirto insha Allah taala in laga soo qodo oo deegaanada ay macdinta ku jiraan ay shidmaan oo ay dhismaan oo ay noqoto insha Allah magaalooyinka Afrika ugu shidan insha Allah waxaan rajaynaynaa haduu ilaahay ka baryayna anagana macdinteena inaan soo saarano oo aan noqono insha Allah taala haduu ilaahay raad meeshii shumaca qaaradda mugdiga ahayd qaaradda Afrika laga shiday haduu wali waxaan joognaa Lexington waa u jeedaan water wheelka meesheedii waa kana sidoo kale inay qadariyaan ama ay soo xasuustaan ayaa waxay sameeyeen taalo waxay u sameeyeen ninkii kabtanka ka ahaa oo suurageliyay inuu water wheelkan la sameeyo oo commission oo u noqday marka asagay ku soo xasuustaan waxay dhahaan magaaladan haday ninkan ahaan lahayn sidaan uma shidmi lahayn ay leeyihiin macnaa ninkan wuxuu sameeyay furdadii ayuu habeeyay dib u habeen ku sameeyay si alaabta oo macdinta loogu raro taas darteed ay ugu sameeyeen sidoo kale guryahan yar waxa deganaa shaqaalihii oo ka shaqeynaya mining oo qodaya macdanta guryahan yar ayaga loo sameeyay habeenkii markay shaqadooda soo dhameeyaan guryahoodana ku soo hooyin jireen laakiin waxa cajiib ah markii oo la xiray meesha macdanta lagu qodo sanadkii 1200 ayaa meeshii wax isku rogtay meel dalxiis loo yimaado oo dad boqolaalo ah oo ay jidkan maraan gaar ahaan waqtiyada samarka ah ama oo jilaalka uu jiro laakiin waxa dhacday habeenay ayaa fikirtay maadaama dadkana inta marayaan inay u sameeyso quraac iyo waxyaabo ay cunaan ayaa reerkan Brown family la yiraahdo waxay la yimaadeen fikir ah inay meesha meel shaah lagu cabo iyo dadka ay ku quraacdaan ay u sameeyaan marka ilaa habeenkii ayay furi jireen marka lacag badanna waa ka sameeyeen
waxyaabahan ayaa lagu cuni jiray salmon iyo waxaasoo dhan. mar dhow 2 sano ka hor ayay xirtay ayaa la yiri familiga meel waxay ku qabeen oo shaah lagu cabo xagga. marka labadan guri ayay marka hadda gabar kale la wareegtay oo dhar ku iibisa, laakiin taariikh weyn ay ku leeyihiin familigana waa kan ayagoo saddexdoodii istaagan. tanna waxay isoo xasuusisay haweenka Soomaaliyeed sida ganacsiga iyo kartida iyo ay u leeyihiin oo ay macnaa dhaqaalaha wadanka ay wax ugu kordhiyaan. maanta markaan arkay ayagana haweeneydan familigan oo meeshii oo intaasoo kun oo quraac ay samayn jirtay ayaa la yiri. marka waxay isoo xasuusistay haweenka Soomaaliyeed oo door weyn ka ciyaaray dhanka ganacsiga iyo dagaalada sokeeye markuu dhacayba. waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed Ilaahay cumri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban Ilaahay idin siiyo, ma idin iloobayno. barakallahu fiik.